xilli ay colaadii gobolka Nagorno-Karabakh ee dhex maraysay Armenia iyo Azerbaijan ay kolba weji cusub la imanayso oo heshiiskii xabad joojintuna uu noqday mid fulintiisii kadib dhacday xilligii uu dhaqan geli lahaa oo habeennimadii Axad soo galaysana ay duqeyn labada dhinac isdhaafsadeen oo Armenia habeennimadiiba ay duqeyn dhanka gantaalaha roobka kaga dhigtay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Azerbaijan ee Ganja oo iyadu ah magaalo aan sidaaba uga sii durugsanayn aagga colaadda xudunta u ah duqeynta oo markii ugu horeysay ay Armenia u isticmaashay gantaalaha Iskoodka wasaaradda difaaca Azerbaijan ay ku eedeysay Armenia xadgudubka xabad joojintii la gaadhay ayaa waxa ay sheegtay in ay duqeynta magaalada Ganja ku dhinteen ilaa 9 ruux tiro kale oo intaa ka badanna ay ku dhaawacantay Azerbaijan dhankeeda waxay kaga jawaabtay duqeyn ay subaxnimadii Axadba diyaaradaheeda daroonta ee Bayraktar ay la bartilmaameedsadeen raxan gaadiidka ciidamada oo ay Armenia lahayd oo ay ku eedeysay inay weerar dhulka ah ku soo qaadayeen wasiirada arrimaha dibadda ee Turkiga iyo Ruushka ayaa khadka telefoonka waxa ay kaga wada hadleen xiisadda gobolkaasi iyo xadgudubyada ay Armenia ku sameysay heshiiskii xabad joojinta isagoo Mawlid Jawish Oglo ka dalbaday dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov inay ku khasbaan Armenia inay u hoggaansato heshiiskaasi isla markaana ay uga digaan khatarta ay ka dhalan karta falalkeeda daandaansiga ah ee xadgudubka ku ah xabad joojintii waana xilli colaadu tahay mid hubkii Ruushka iyo kii Turkigaba loo isticmaalayo iyadoo hubkoodaasi yahay ama mid ay toos ugu kala geeyeen labada jamhuuriyadood amaba gacmo saddexaad soo maray sida gantaalaha Ruushka ee Iskandar oo iyaga ay Israa'iil u geysay ama ka iibisay jamhuuriyadda Azerbaijan gantaalaha oo ku fashilmay inay ka hortagaan daroonta Turkiga ee Bayraktar TB2 oo ay wataan ciidanka Azerbaijan dabeetana oo Ruushku ku soo bedelay gantaalihii la nooca ahaa ee uu isagu haystay ee Iskandar oo gantaalahaas oo aan laga soo tallaabin xuduudda Armenia laguna duqeeyay meelo badan oo halbowle u ah jamhuuriyadda Azerbaijan sida garoomada ciidamada suuqyada waaweyn ee magaalooyinka iyo xarumaha biyaha saafiga ah laga cabo iyadoo waxay kala mudan lahaayeenba gantaalaha Iskandar iyo daroonta Bayraktar aan gantaalaha Ruushka laba soo dhaafin xuduudda Armenia isla markaana Azerbaijan iyo Turkiguna aanay doonaynin inay gantaalaha ku bartilmaameedsadaan gudaha ciidda Armenia si aanay taa Ruushka uga dhiganin marmarsiyo ay dagaalka ku soo galaan waxaase la ogyahay waa inay labada nooc ee gantaalaha ee S-300 iyo Iskandar ay isku tayana yihiin isku masaafana gaari karaan waana xilli ay diyaaradda Bayraktar ka tallaabsatay oo duqeysay dabeetana dumisay gantaalihii difaaca cirka Ruushka ee S-300 waana xilli la isu tuuray gantaalihii Ruushka ee Tushka U iyo kuwii Turkiga ee Tarma oo markii oo midbaka kala bartilmaameedsaday oo ay labada dhinac iska soo kala garaaceen ay khasab noqotay in qolo waliba ay gantaalkeedii dib uga saarto colaadda waana xilli ay Turkiga iyo Azerbaijan iska garteen khiyaamadii weyneed ee uu Putin heshiiska ku lamaaneeyay taasoo ahayd inay ujeedada weyn ee xabad joojintu noqoto inay dagaalka ka baxaan saanada istiraatiijiga ah sida gawaalida laga rida gantaalaha culus iyo saanada dhanka cirku
laakiin dagaal ay labada dhinac iskaga hor yimaadaan oo hubka khafiifka ah la isu adeegsadaa aanu macnihiisu noqon doonin in ilaa xad ay burburtay xabad joojintu. waana qorshaha uu ku doonayay Putin inuu dagaalka kaga saaro diyaaradda Bayraktar oo xilligan noqotay ta loogu hadalhayn badan yahay caalamka ciidamada iyo colaadaha. waana diyaaradda daroonta ee cabsida joogtada ah ku haysa 36 dowladood oo caalamka siday doonaan ka yeeli jiray, kuwaas soo bilaabay inay dib u eegis ku sameeyaan saanadooda military si ay bal isugu dayaan inay farsameeyaan wax ay kor ugu fiiqaan oo iskaga celiyaan diyaaradda Bayraktar oo bedeshay xisaabihii iyo qiyaasihii military ee jiray, gaar ahaan markii ay axadii duqaysay ee baabi'isay gantaalkii difaaca Ruushku isku haleynayeen ee S-300. waana xilli uu madaxweyne Putin doonayo inuu xad u yeelo hubka loo isticmaalayo dagaalka, maadaama uu badka soo wada dhigay hubkiisii jiilka 3 iyo 4, laakiin aanay natiijo la taaban karo ka gaadhin colaadda gobolka Nagorno-Karabakh, iyadoo jamhuuriyadda Armenia u isticmaashay dagaalka diyaaradaha Ruushka ee Sukhoi 24 iyo MiG-29, kuwaasoo iyaga toddobaadkii u horreeyayba laga saaray adeegga markii waxna la soo daadiyey waxna ay cillado kale isaga daateen. haddana waxa ay Armenia isticmaashay noocyadii gantaalaha Ruushka ee ka mid ahaa saanadda istiraatiijiga ah sida Iskander M iyo Iskander O. gantaalka kale ee difaaca cirka ee S-300 iyo gantaalaha ridada dhexe ee Scott B iyo Tushka U. dhammaan gantaalahaasi inkastoo markii la riday qaarkood gaareen magaalooyinka waaweyn ee Azerbaijan oo ay dad badan oo rayidihina ku dhinteen ama ku dhaawacmeen, haddana waxa ay joojin kari waayeen horumarka ay militariga Azerbaijan ka sameynayaan furimaha dagaalka maalinba taxigta. waana xilli Vladimir Putin og yahay xaqa ay Azerbaijan u leedahay dhulka ay Armenia haysato oo uu doonayana inay Armenia ka baxdo si dhibaatada labada jamhuuriyadood xalkama dambaysa looga gaadho. laakiin shayga uu ka warwarsan yahay uu yahay inay tallaabadaasi isaga laftiisa waddo ku furto oo ay jamhuuriyadda Ukraine ka dalbato Putin inuu ka baxo jasiiraddii Crimea ee uu ka qabsaday sanadkii 2014 iyo mandaqadaha kale ee bariga Ukraine ee ay dadka Ruushka ahi degan yihiin oo jamhado mucaarada oo Ruushku taageera ka taliyaan. shixnado lagu sheegay gargaar bini'aadanimo ayaa soo gaadhay jamhuuriyaddaasi Armenia, kuwaasoo ka yimi waddanka Maraykanka, iyadoo duulimaadkii ugu horreeyay ee ka yimi magaalada Los Angeles oo sida 20 tan oo gargaarka bini'aadanimada ah uu axadii gaadhay magaalada Yerevan ee xarunta u ah jamhuuriyadda Armenia. shixnadan gargaarka ayaa lagu sheegay inay ka kooban tahay daawooyin, agabka caafimaadka iyo qalliinka, mashiinada X-rayga ee hadba meel loo qaadan karo, sariiraha bukaanka la jiifiyo iyo gogashooda, dharka qabowga laga xidho xilliga jilaalka, iyo mashiinada dabka laga dhaliyo ee marba meel la geysan karo. taakuladan degdega ee dhanka Maraykanka ka timi oo shixnadaheeda kalena maalmaha soo socda iman doonaan, qaybna ay ka yihiin dhakhaatiir dhanka qalliinka ah oo Armenia iman doona, ayaa waxaa la sheegay inuu bixiyay sanduuqa maalgashiga wadajirka ee Maraykanka iyo Armenia, iyadoo aanay jirin cid xaqiijinaysa shixnadahaasi waxa ay dhab ahaan noqon karaan, maadaama ay diyaarado toos ahina sidaan, dowladina ay dowlad kale u dhiibayso oo aan xitaa la soo marin hay-adihii dhanka gargaarka degdega ee caalamiga ahaa sida laanqeyrta casi caalamiga ah. waqtiga lagu soo beegayna uu yahay mid xasaasi ah oo ay colaadi ka socoto gobolkaasi.